بسم الله الرحمن الرحيم وأحمد فارح علي ذاتا وروما يدلك تليانيga وفبراير لما يسقاشنka waxa la yiri rag iyo riyaa musayba reerkoodii gabe sidaa darteed si aan Soomaali u gabin waxaan halkan ka soo jeedinayaa laba hadal oo dhammaan dadka af Soomaaliga ku hadla kan hore loogu talagalay kan labaadna Maxamed Siyaad Barre oo 22 sano Soomaaliya madaxweyne ka ahaa isagoo gada joogana ay igu dambeysay وهلكي عبد الله قرشيه وإن نورنتا قرحنا Soomaali wixii aan oran lahaa horaan u iri sarbeeb iyo af qayxanba waan ugu sheegay dul iyo hoosba waan ugu dhigay gurac iyo toosbana waan ugu tabiyey qof markii ay joogto Soomaalidu waxa ku habboon waa in wax ana malahayga ma jiro ha yeeshee waxa habboon inaad taqaani waa arrin inaad ku dhaqaaqdo oo ku dhaqantaana waa arrin labaad Soomaalidu siday u badan tahay cidi kama xikmad iyo murti badna waana tilmaan ay inoo galeen dhammaan shisheeyaha intooda dhaqankeena u kuurgalay wax badan baa lagu celceliyey inaynu nahay dad tiro yar oo af qura ku hadla oo diin qura rumaysan wada qaraabo ah isku sinji ah hiddo keliyihiina mideeyo su-aasha ah haddii ay arrintu caynkaas tahay dalkuna uusan ku yarayn maxay isu xasuuqayaan su-aashaas intaan jawaab u doonay ayaan soo qaban waayey rag kale oo waxgarannimo lagu majeerto waan weydiiyey iyaguna haba yaraatee waxba igu kordhin waaye waxaan rogrogaba waxaan ka badan waayey jawaabna aan ka dhigay aqoon xumo haddana waan ka daayey waxaan idhi waa hoggaan xumo haddana waan ka daayey waxaan idhi maye waa dadka inta isku danta ah oo aan is ogeyn haddana waan ka daayey waxaan idhi waa kibirka iyo qabka ah anaa reer hebel ah gob ah oo inta kale talada dadka iyo dalka kaga mudan iyadana waan ka daayey waxaan idhi waa intaas oo dhan oo ishuwan waxa guuldarrada Soomaali ugu wacan oo tii ugu horreysay waa aqoon darrada ay ugu weyn tahay inta ay jawaabtaas ka habboon cid kale soo bandhigi doonto taydaas baan isaga dhaganaan haddana waxaan u gudbayaa erayadii aan u soo jeedin lahaa Soomaalida ay casharadan u socoto dhagaysana doonta maanta oo aan casharadan duubayaa waa bishii Febraayo hal sano iyo maalmo ayaa laga joogaa markii xamar laga soo saaray ninkii muddada dheer dalkeena ka soo talinayay ee la oran jiray Generaal Maxamed Siyaad Barre hal sano ayaa dagaalkii xamar laga joogaa sanadkaas oo aan laba isku diidi karin inuu taariikhda ku geli doono sanadkii burburka isxasuuqa sokeeye iyo dhiig baxa sabab la'aaneed ee ummadda Soomaaliyeed dad aan xisaabtan lahayn waa duunyadoo kale waa humbani aan xoolaha dhaamine maxaan rag allow ka faa'iidnay dagaalkii hubaysnaa ee 1978 ilaa 1990 soconayay ee ugu dambaystii kursigii madaxtooyada lagaga tuuray Maxamed Siyaad Barre waan ogahay oo in doora ayaan jeclayn su-aashaas inaan isweydiino oo rabi lahaa inaan iska indhatiro hal sano oo idin oo taariikhdeena ka mid ah kooxaha sidaasa waxaa ka diimoon inay jiraan dad aan dhacdooyinka taariikhda ka ilduufin oo aaminsan ha xumaato hase samaatee in ummad waliba waxay nafteeda ku fasho loo diiwaan geliyo si berri ka maalin ay da'ahooda dambe wax ugu qaataan waa tahay hal sano ayaa laga joogaa soo gabagabayntii taliskii la eeray ee Maxamed Siyaad Barre hogaaminayay soo gabagabayntaas oo dhiig badan lagu xaqiijiyey dhalinyaro boqolaalihina u geeriyootay hase yeeshee aan su-aashii hore ku soo celiyey ma ka raysannay mase waa nooga dareen nimankii inta caasimadda u soo dhaqaaqay xukunkiisii siloonaa xididada u siibay jawaabta oo toos ah inaad aniga iga sugto oo iyadoo diyaara aan ku dhiibo waxaa ila dhaantaa inaan wada doono oo aynu markaa mid qura ku heshino horta hore mabda ahaan ummadda Soomaalidu waxay isku raacsan tahay amaba isku raacday hadda ka hor boqolkii nin ee Maxamed Siyaad Barre horseedka u ahaa ee 20 sano ka badan Soomaaliya ku amar ku taaglinayay minba inay u leekaataba inay shacbiga ugu eedeysan yihiin musuqmaasuq cadaalad darro hurin dagaalo sokeeye kutumashada xuquuqda aadanaha dhac iyo boob hanti dadweyne iyo xumaan kasta oo ruuxa maankiisa ku soo dhici karta ummaddu markay intaa dareentay waxay garaysatay
inay xaq iyo lama huraan tahay maxamed siyaad barre iyo kooxdiisii dhiigga dadka quudanaysay in talada laga wareejiyo si qaskii siyaasadeed iyo burburkii dhaqaale ee ay dalka badheen looga badbaadiyo. hadal iyo hees tix iyo tiraaba dareenka dadweynaha waa lagu gudbiyey, ha yeeshee dhaguhu ka furaystay isagoo isku halaynayay hubkii tirada badnaa ee xeryaha ciidamada lasoo dhoobay, hubkaas oo asal ahaan loogu talagalay ilaalinta sohdimaha qaranka Soomaaliyeed, si uu kolkii dambe u rogay wax shacbiga lagu caburiyo, lagu kibirsabiyo oo lagu adoonsado. markii hadal iyo waana lagala quustay oo uu kursigii maxamed siyaad barre ka dhigay wax uu dhaxlay amaba uu leeyahay, dadkii oo idilna uula macaamilay sidii dhowr tiro ari ah oo xero ugu odan, ayay bilaabatay in la jabhadeeyo oo xoog lagu dayo. waa gar oo gadoodku waa bannaan yahay kolkii cadaadisku baaro oo talis naxariis darani uu shacbiga dusha ka fuulo, ra'yiga qofka kalena la caburiyo sidii ka dhacday Soomaaliyadii maxamed siyaad barre lagu ciqaabay. waxay ahayd in la isweydiiyo maxaa la yeelaa, sidee baase ninkan iyo kooxdiisa hungurigu indhaha ka riday la isaga dulqaadaa. qaabka halgankaasi sidee buu noqon karaa? ma halgan nabadgeliyo oo af iyo qoraal ku egbaa, mase waa halgan hubaysan oo ciidamada taliska inta lagu jabiyo lagu afgembiyaa? halganku noocii uu doona ha ahaadee, dadka lagu fulinayaa ma bulshada qayb yar oo ka tirsan baa, ma bulshada inteeda badan baa? haddiiba dhowr qaybood oo bulshada ka mid ahi ay halganka galaan, ma waxaa habboon intii isku dhiig ah oo abtiris wadaagtaaba inay dhinac ka dagaalanto, mase waxay guushu ka dhoweyd inay yeeshaan talis keliya oo halgankooda hogaamiya? waa jaad majaadka xidhiirka ay halgamayaashu la yeelanayaan bulsho weynta dalka ku sugan ee ay badbaadinteeda haddiiba ay u dagaalamayaan. ugu dambaysta waa maxay barnaamijka uu mucaaradku fulinaya haddiiba ay suura gasho inay xukunka qabsadaan oo kala wareegaan xukuumaddii ay dhaliilayeen? waxaa soo shaacbaxay jabhado dhowr ah oo qabiil ku dhisan, aan midda kale xiriir la lahayn, mid walibana iskeed u tartamayso ama ugu tartamayso sidii ay talada dalka kula wareegi lahayd. waxaa soo shaacbaxay jabhado aan lahayn qorshe siyaasadeed oo marka ay dagaalamayaan aan dalka oo idil u muuqane gobol qabiil kaliyihii dego xamidoodu yahay, kuna tashan dadka gobolkoodu inay dhulka oo idil u taliyaan oo nin iyaga ka mid ahi kursiga maxamed siyaad ku fadhiisto. wixii qalad ku unkamaa qalad bay ku idlaadaan. burburka iyo hoogga maanta ina haystaa waa muranla qaybtiisa ugu weynay inay taliskii maxamed siyaad barre dusha ka saaran tahay, ha yeeshee waxay taariikhdu qayb kale oo aan taa ka yareen u xambaarin doontaa jabhadihii ciddiisa u halgamay. in la inkiraana waa mindi kutaag iyo maanyari aan in laga jawaabo mudnayn. maxamed siyaad barre in badan ayuu Soomaalida u sheegay inuusan kursiga madaxtooyo nabadgelyo uga degi doonin, haddii sidaas lagu qasbana la eedi doono oo maalin ay noqotaba rabbi laga duraansan doono inuu hoggaanka dalka dib ugu soo noqdo. hadal aan cid kale ka maqlay idiin soo tabin maayee dadkii uu ku oran jiray ee uu islahaa kursiga kulama rabaan ayaan ku jiray. sanadkii 1979 ayay ahayd markii iigu horreysay ee maxamed siyaad iyo anigu aan kafool u kulannay. dalabka is-aragguna isaga ayuu ka yimid, isagoo igu tuhmaayey inaanan u dhega nuglayn sacabtumidda iyo tirinta heesihii ammaanta ahaa ee u jeclaa. waa subax hore, waxaan isku dayey inaan ogaado wixii uu ka qabay mucaaradkii hubaysnaa ee isa soo taraayey iyo saraakiishii rayadka iyo ciidamada lahaa ee kooxda dalka iyo shaqadaba kaga baxsanayay. xabad sigaar intuu shigtay oo kacay oo kursigii uu ku fadhiyey dhinac joogsaday ayuu farta ku fiiqay oo igu yidhi, waxaa loo digiyey hamleeyahay waa kursigan xun ee aan ku fadhiyo inuu nin kale ku fadhiisto aniga oo nool. waxaanse ku ballan qaadayaa geesa dhiig leh waxaan ahayn inaan la iiga qaadin. wuxuu isagu ula jeeday yeelkoodeed, kollay anigu raganimo iyo geesnimo uma qaadan. waxaan u qaatay macandegnimo iyo fikrad habowsan oo aynu dhammaanteen ka qabno tagada dowladnimo, xafiis sare ha ahaato mid hoosesa ha ahaatee. waxaa naga dhadhacsan ninkii meel lagu magacaabaaba inuu isagu leeyahay oo ay gar tahay si uu meeshaa u xagsado boqolaal ruuxi inay u dhimato, u dhaawacanto, u qaxdo oo dalka oo idili uu u gubto.
weedha kale ee uu tan iyo bilowgii 80kii dadka u taga ku odhan jiray ee shaaca baxday waxay ahayd haddii aan soomaalidu iga dayn cadaadiska kursi ka qaadka daaran waxaan ballan qaadayaa dal mooye inaan dad iga dambayn. soomaalida warka dulucda lihi ma seegee waxaan ka yaabay sida ay weedhaasi beled iyo baadiyaba ugu fiday ee beryahaas la isaga warin jiray. bal u fiirso sheekadan, waa diraac kulul amase waxay ahayd hoga kaliileed. waxaan annaga oo kooxa harsanaynaa balbalo markii iigu dambaysay ku ooli jirtay tuulada leego ee magaalada wanlaweyn u dhow. waa dabayaaqadii 1987kii. waxaan u baahanay caano geel oo aanu ku harad baxno. waxaan sheedda ka aragnay islaan da' weyn oo sidata dhiil yar suuqa tuuladana u wadata. waanu u yeeray wixii ay wadatay oo 2 koomba noqdayna waan ka shubannay. xisaabtii ay naga heshana waxay ka badnaan weyday 240 shilin. weliyo soomaaliyeed oo goobtana la joogay ayaa ka tiiraanyooday dandarrada haweeneyda ka muuqata iyo yaraanta lacagta ay naga heshay. su-aale ayuu weydiiyey, eedo halkii caanaha ka soo qaaday? waxay tidhi maande saax weyn. goormaad ka soo kacday? xalay muguu dayaxu soo baxay. markaa saacaddu waxay ahayd 1:00 iyo barkii duhurnimo. wuxuu ku keenay garan maaye wuxuu weydiiyey, eedda maxamed siyaad barre ma taqaan? haa, duqa carrada ka talsha ma aho. in yar hadday aamusnayd bay iyadii su-aal soo rogaal celisay oo waxay tidhi maandhow ma ruma? maxaa eedo maxaa run ah? duqu waxau yidhi dal maahee dad iga heri maa, maandhow ma ruma? annaga oo yaaban baan isdhuganay. waxaan ka yaabnay siyaasadda sirka ah ee jaalasiyaad waxaa saxweyn geeyey ee islaanta u gudbiyey. nasiibkeedaa wanaagsanaaye iyadoo dandaradeedii huwan si aan la xidhin oo aan jilcow iyo axmed saleelaan u gacan gelin ayay naga dhaqaaqday oo reerkeedii oo ay caawa fii damba ku beegan tahay ula carowday muskiilo sonkor ah iyo koombo masaga ah. talow maanta maxay ku sugan tahay? duqii carrada ka telin jirayse ma ka raysatay mase waa u darsatay? hal sano ayaa laga joogaa ama ka soo wareegay burburkii taliskii la eeray ee jaalihii soomaalida lagu ciqaabay uu hoggaanka u ahaa. halkaas sano maskaxdaada dib ugu soo celi, labadii hadal ee aan isaga ka soo wariyeyna soo dhawayso. ma dhagoobay qorshihii maxamed siyaad mise waa ku beenoobay? su-aalahan isweydii. hal sano kadib dalkii maxamed siyaad laga dhaxlay ma dhan yahay oo ma midaysan yahay? dhallinyaradii waayeelkii iyo waxgaradkii kolkii isaga talada laga qaaday noolayd maanta maxaa ka nool? kuwii isaga la dagaalamayse maxaa ka haray laftoodii? shabaadihii dhowrka ahaa ee kursigii madaxtooyada ka tuuray ma midaysan yihiin oo intii hore ma isaga dhow yihiin mase waa sii kala fogaadeen? hal sana kadib hanaankii dowladnimo iyo kala dambayntii maxaa ka haray? yaase soomaaliya maanta u hadli kara? hal sana kadib gobol u gudbi karaa ma jiraa? talis dhexe oo laga amar qaataase ma idiin muuqdaa? rajada aad ka leedahayse imisay la eg tahay? hal sana kadib magaaladii xamar la odhan jiray maxay mudatay? maxaa ka haray? maxayse eeday oo eersatay? singaani, xamar weyne iyo goobihii taariikhda iyaga ka waran. hal sana kadib ma caddahay qabiil keligiisii inuusan dawlad dhisi karin, inta kalena inta xoog ku muuquuniyo ay isaga daacad u noqdaan. hal sana kadib taliskii maxamed siyaad barre dadkii ka yaaci jiray ee dibadaha qaxootiga ka doonan jiray ma yaraadeen oo dhulkoodii ma ku soo noqdeen mase waa tuban jibaarmeen? hal sana kadib qabyaaladii aan odhan jiray waxay asaas u tahay dib u dhaceenna ma ka soo raysay mase haatan lagama xishoodo oo waaba lasii xalaareeyey? ugu dambaystii hal sana kadib intee bay la eg tahay rajada aad ka qabtaa dib u soo celinta qarannimadeedni luntay iyo hanaankii dawladeed ee beri jiri jiray? imisaysa qaadan kartaa in lagu soo celiyo? waxaan dhegaystaha ka codsanayaa inuu mar kale su-aalahaas dib ugu noqdo. meel kasta joog, haddaad doonto yurub iyo america joog, haddaad doonto afrika joog oo laaluushka iyo cadaadiska shisheeyaha isqaayiba. mid kolkaad su-aalahaas kaga jawaabtid isku soo xooriyo sow middan soo socotaa dhammaantood koobi mayso. maxamed siyaad iyo kooxdii dalka loogu dawgalay ee 20 sano inta ka badan xuquuqda ummadda ku tumanaysay miyaa dagaaladii sokeeye ku guulaystay mise waxay toodii noqotay raggii hubka gurtay ee nagu yidhi waxaan ridaynaa taliska keligii taliyaha, dabadeedna waxaan dhidhibada u aasaynaa bulsho aan qabyaalad ku dhisnayn oo dimuqraadi ah, ilbax ah oo dadweynaha soomaalida u siman. sheekada oo idili so uma eka inantii inta ninku kufsaday hooyadeed ka dulqaaday
isla markiina islaantii halkii gabadhii gashay oo markay gabadhii istiri adiguna hooyo ninka ka dulqaad islaantii ku gacan sayrtay dabadeedna ay gabadhii reebtay weedda ay soomaalidu wada taqaan oo odhanaysa hooyo show ileen iga aad kicin mayne waad iga kacsanaysa. kollay anigu nin baan ahay oo maxamed siyaad iyo kooxdiisii waa cabdiraxmaan iyo maxamed sheekh lahayd baa meeshii laga qaaday oo keliya guul uma arko adiguna malaha ila mid baa tahay guul ha u arkin say ma ahee wax kaleba ha ka fakarine naftaada dib ugu noqo adigoo ah qof soomaaliyeed meel kastaba joogi. isweydii waxa aad maanta ku sugan tahay nabadgelyadaada iyo noloshaadu sidee bay yihiin. haddaad dalka gudihiisa joogto yaa kuu dawlad ah yaad u dacwootaa oo haddii lagu weeraro ama lagu dhaco aad u ceelsataa yaa mas-uulkaa ah. haddaad dibadda joogto maxaa xurmo ah oo aad ku haysataa. dawladda aad dalkeeda joogto haddii wax lagugu yeelo yaad u sheeganaysaa oo kaa wakiila. qoyskiina imisaa ka dhimatay imisaa ka dhaawaca imisaa ka maqan oo aan la ogeyn meel ay ku sugan yihiin. ma la socotaa in la kordhiyey waktigii u qaybnaan jiray barnaamijka baafinta ee b b c da si wax looga qabto dhambaalada baafinta qaraabada ee maalin walba soo kordhaayay. barnaamijkaas marka aad dhegaysato naxdin ma ku geliyaa muxuuse ku xusuusiyaa. iyada ka waran baasaboorka bugta ah ee aad sidato ka waran fiisada bugta ah ee aad lacagta ku raadinayso ka waran adiga iyo shirkadaha diyaaradaha ee aad tigidhada ka doonato kadib markii aad gacanta ku dhigto dokumentiga bugta ah ee safarka loogu baahan yahay. baasaboorka soomaalida kolkaa tusto tilmaan ka bixi sida uu noqdo wejiga shaqaalaha shirkadaha adduunka ee diyaaraduhu. haddiiba uu dokumentiga bugta ahi kuu shaqeeyo oo aad diyaaradaha midooda raacdo baasaboorkaaga ma adigaa haysta oo sida dadka kale jeebka gashada mase waxaa loo dhiibaa biilootaha oo markii la dego ku wareejiya saraakiisha sadcaalka ee gegida dawladaha joogta sidii aad tahay burcad la iska ilaalinayo. runta hala gabane haddaad tahay dibad wareeg qaxootid haadis ah marna ma qoomamaysay inaad soomaali u dhalatay. dhalashadaada inaad qoomamaysaa ma tahay wax laga xumaado mase waa maxaa ka macno ah waa wixii ina dileen. aniga waa i dhibaye adiga maku dhibayaa warka yurub ku baahay ee ku saabsan gabadha soomaaliyeed ee ku foolatay kuna umushay waddada dhexdeeda tuulo ku taal bartamaha dalka talyaaniga. telefishinka talyaaniga markaan ka fiirsaday ayaa dhulku ila wareegay waxaanan iska xaaraantinimeeyey inaan gato amaba akriyo jaraa'idka iyada iyo wiilka ay umushay ay ku sawiran yihiin maxaa yeelay qof kastoo xilkas ah oo soomaaliyeed wuxuu maanta iska dhex arki karaa duruufta ay faadimo maxamed yuusuf ku nooshahay. soomaalida waan macno aqaan oo waxay isku mashquulin doonaan cidda ay faaduma tahay nuxurse kuma jiro in la ogaado maxaa yeelay giddigeen baa wada faadumo ah. telefishinka iyo jaraa'idku kolkay sheekadeeda ku dheeraadeen waxaa igu maqaalo ah in dad badan oo talyaani ah ay taakulo la soo gaareen qaarna ay u ballan qaadeen inay shaqo siin doonaan kolkay umusha ka baxdo. goormayse umusha ka baxaysaa waxaan u jeedaa goormay umusha dalla-aanta ka bixi doontaa oo ay ka maarmi doontaa sadaqada talyaaniga. inay dhowdahay ima muuqatee adiga maxay kula tahay. dalka gudihiisa dib ugu noqo waxay hor yaal joornaal talyaani ah oo la yidhahda Corriere della Sera. nimanka xamar ku dagaalamaya ee dadka ku baabi'iyey nin ka soo dhaawacmay ayaa isbitaalka la geeyey maalin la weyn sida gaalkii meesha tegay uu soo sheegay weeye. ninkii ayaa xabadii laga saaray gacantuna waxay ahayd gacan aan xaaqabad damba lahayn. markaa ayaa gaalkii wuxuu weydiiyey dhakhtarkii maxaa beri baan ka goynayaa gacanta ayuu yidhi. markaasuu yidhi maya hadda ka goysi. wuxuu yidhi minshaartii aan ku goyn lahaa ayaa waxaa iga haysta dhakhtar kale oo saaxiibkayda oo nin kale gacanta ka soo goynayay. minshaari xamar ma taalle hadda ogaada. qandhadii warkii faadumo iyo midkaa xamar ka yimid igu rideen intaanan ka doorsan ayaan gatay joornaal american ah waa International Herald Tribune. waxaan arkay masawir weyn oo laga qaaday dad madmadow waa soomaali bustayaal huwan oo aan hubo inay leeyihiin jubbadaha iyo kiboodyada culculus ee dhaxanta jiilaalka Yurub laga gashado. waa qaxooti 200 oo qof gaaraya oo jooga magaalada Bucharest caasimadda Romania. waxay ka cabanayaan daryeel la'aan cunno xumo iyo dagaal la'aan. malaha markay in badan cabashada ku soo jireen lagana hoos qaadi waayey ayay go'aansadeen inay si kale dhagax adduunka u soo jiitaan. cuntadii bay ka soomeen oo waddooyinka is soo tubeen. waxa qabow dhacaya toddobaad markay qarsanaayeen weeye marka Herald Tribune lagu soo sawiray. hadda ogow waa sawir kaliya iyo 2 sadar oo ku hoos yaal
laguna muujinayo cidda ay yihiin iyo cabashadooda. faallo laguma darin, canaana hay-adaha qaxootiga loo soo jeedinayo lama raacin. waxaa dalkooda ka dhacaya oo dagaal iyo xasuuq ah inay kaalmo ku mudan yihiinna lama sheegin. maalintaas kadib raadiye, jaraa'id iyo telefishan toona laguma soo qaadin. ma la ereen, ma waxbaa loo qabtay. cid ogi ma jirto, ciddani ka haysaana ma muuqato. geelaa lagu habaaraa, ninku sheegtiyo ninku shubawaa. horta ma inoogu dhacda. qorshihii guulguulkii iyo ku talagalkii maxamed siyaad barre iyo kooxdiisii miyaa rumoobay, mase waxaa beenoobay ballanqaadyadii lagu dagaalgeliyey shacbiga soomaaliyeed ee cadaaladdarrada iyo cadaadisku ku habsadeen asii inta tubtii habboonayd laga weeciyey hannaanka qabyaaladeed hubka loogu dhiibay. su-aashaas iyada ah anigoo aan toos uga jawaabin ayaan sidaas kaga tegayaa, maxaa yeele waxaan aaminsanahay inaynu si wada jir ah jawaabteeda u bixinnay su-aalihii 10 ahaa ee aynu midmidka kaga jawaabnay dhexdooda. macnaheeduse ma aha inaynu ninkii iyo xukunkiisii u barooranayno amaba aynu u booliyoobayno. waxayse tahay inaan yeelanno runta jirta, geesinimo aan ku qiranno inaan yeelanno. geesinimadaas oo aan helno ayaa noqon karta furaha dib u dhiska qarannimadii soomaaliyeed ee burburay. haddiiba ay cilmiga ilaahay ku jirto inay maalin uun dib u dhismi doonto, meel kale oo laga doonayana haba sheegi. yaynu kolka sugaynaa, ma waxaan dhowraynaa dunidu inay aawadeenna u ilmayso oo ay inoo soo gurmato oo qarankeenna dib inoogu soo celiso. hal sana ayaa laga joogaa afgambigii maxamed siyaad barre. soomaaliyana waxay ku jirtay ama ku jirtaaba ururada caalamiga iyo kuwa goboleed kuwa ugu waaweyn: jamciyadda quruumaha, midowda afrika, jaamacadda carabta, ururka islaamka. intaba xubin baynu ka ahayn, hase ahaatee ayaa inoo soo dhaqaaqay. maanta un baynu maqlaynaa jamciyadda quruumaha ayaa wax dhexdhexaadinaysa. dunida maanta quwad keliya ayaa ka talisa, waa america. iyada iyo yurubba waxay ku hawlan yihiin sidii loo dejin lahaa loogana faa'iidaysan lahaa wixii ka haray midowda sovieti iyo yurubta bari oo ay daris yihiin, cabsina ay ka qabi jireen. hamigooda africa oo idili way ku yar tahay. soomaaliyana iyada haba soo qaadin, wax macno ah uma laha. dekedihii istraatiijiga ahaa ee berbere iyo kismaayana waa la qiimo tiray. hadday qiimo lahaayeen waxay raaceen gorbajof oo dhameeyey dagaalkii qaboobaa ee ilaahay in badan dunida saddexaad ku arsaaqay. magacyada ah daarood, isaaq, hawiye, raxan weyn iyo kuwo kale ee aynu isu kala saaraa, hadday adiga macno ku leeyihiin amaba ay kula wen yihiin, dunida ilbaxday macno weyn iyo mid yartoona uma laha. waxay dunidu u socotaa intii isku gobol ahiba inay midowdo si kor loogu soo qaado midnimo siyaasadeed iyo nolosha dhaqaale ee shucuubtooda. 12 dal oo yurub ah oo aan waxba kala ahayn maanta, oo baasaboor aan loo kala qaadan. waxaana jira kuwo kale oo maalin walba ku baryootamaya in lagu daro. dadka caynkaas u fakaraya maxay hami ah oo ay ka qabi karaan in cali mahdi xamar qabsado, cabdiraxmaan tuur waqooyi qabsado, amaba uu caydid ku adkaado amaba uu ku guuldaraysto? sidee bayse ugu garaabi karaan kumayaalka naftooda ku waayaya nin abgaala ama nin habargedira ama nin isaaqa ama nin qolo kale ahi inuu madaxweyne noqdo iyo in kale? hay-adaha iyo shaksiyaadka reer galbeedka inoogu rumay waxay markii dhowr bilood la joogaba mar meel ku qoraan amaba ka hadlaan soomaalida gaajada, cudurrada iyo dagaaladu salfadeen waxa lagu sadaqaysto. wax qumanina taa kuma yimaadaan. khilaafka ina dhex yaal iyo colaadda dheeraatay ma jiraan wax cilmi baaris ku sameeya oo galbeed jooga. ma jiraan cid isku hawsha inay garato dabeecadda is-afgarawaaga ina dhex yaal. waxay meel dhigteen inaynu nahay dad dambeeya oo nafta aadanaha iyo dhiigga tooniga aanay qiimo lalahayn oo wax farahooda aan ku jirin ku dagaalamaya.
dad aan yarayn oo Soomaali ah dibaddana ku nool ayaa markii la weydiiyo dalka ay ka yimaadeen Soomaalinimada ka warwareega iyagoo diidaya inay ka jawaabaan su-aasha taa xigta oo ah maxaad ku dagaalamaysaan, maxaad u dagaalamaysaan, maxaad isku haysaan, muddiin baad ku kala duwan tihiin, ma dalkaa idinku yar, ma qaarkiin baa qaarka kala gumaysta. su-aalaha gaalada intaadan la yaabin adiguba qalin iyo warqad qaado oo bal isku day inaad taxdo waxa ay Soomaalidu u dagaalamayso ama ku dagaalamayso oo ay u kala qoqoban tahay amaba ay u doonayso qaarkeed inay u kala go'do. waxa kuu soo baxay oo sababa ah iyo waxaynu mudannay oo aynu maanta ku sugannahay ma isu dhigmaan. reer hebel baa kursiga madaxtooyada qabanaya iyo maya reer hebel baa xaq u leh sabab aan ahayn ma haysaa. natiijaduna waxay noqotay tabaarihii iyo guuldarrooyinkii aan horay uga soo sheekaynay. maxaad kale ood iga sugaysaa? waroo idili wuxuu ku idil yahay ruux walba oo Soomaaliyeed inuu aqoonsado qaranjabka inagu dhacay, dabadeedna inta dan shaksi ah iyo mid qabiil uu laabtiisa ka xaro oo halka uu joogo kaga dadaalo sidii aynu mar kale ummadaha dunida ku dhaqan ugu soo biiri lahayn orana mid noqon lahayn. hawshaas inteeda badani waa hawl u taal aqoon-yahanada hantidii yarayd ee Soomaaliya wax ku bartay oo qolo kasta ha u dhasheene laga sugaayo inay noqdaan badbaadiyayaal aynu berri xusuusanno. intaasi waa hadalkii u jeeday Soomaalida dhammaan meel ay joogtaba dadka af Soomaaliga ku hadla meel kasta ha joogo dalka gudihiisa dibaddiisa. halkaa ayaa hadalkooda uga baxaya. waxaan ku xijinayaa laakiin catirada dhinaca kale aan ku sidii aan hore kusoo sheegay Maxamed Siyaad Barre oo ay ugu dambeysay isaga oo gada jooga waxa uu ka qabanaya meesha iyo waxa uu ka sameeyo iyo waxa loo malaynayo inuu ka yahay iyo waxa uu dhabtii ka yahay intaba. catirada markaa dhinaca kale u rogto ayaa halkaa la kulmi doontaa. haddana aan ku maqashiiyo ama catirada ku dhammaysa dhinacan Cabdullaahi Qarshi iyo ma runtii baynu qarxinaa heestii ahayd ee uu Soomaalida u tiriyay waa hore markii uu ka yaabay inay waxna qaranayso mindiyahana ay qarsanayso. iyadoo heestu sideeda noogu socon doonta waxaan haddana idin xusuusinayaa mar kale in hadalka qaybtii labaad oo ku saabsanaa Maxamed Siyaad Barre oo aan sidaan sheegay gaday iigu dambeysay isagoo jooga aanu ku duubi doono halkaa. haddana heestu halkeedii ayna
cajalada dhinaceeda kale. sidii aan ballan qaaday waxaan halkan ku qabanayaa hadal aan u jeedinayo maxamed siyaad barre oo markii iigu dambaysay geda joogay. soomaalidu sida laga warqabo sanadkii tegey waxay isweydiinaysay oo ku mashquulsanayd waxa uu maxamed siyaad geda ka qabto iyo sababta uu u joogo. waxaan ku dadaali doonaa arrintaa iyada ah inaan ka jawaabo, isla markaasna aan soo bandhigo bal isaga iyo dadka uu la joogo waxa ay kala muteen, hore u kala muteen, waxa ay hadda iyagu ka qabaan joogitaankiisa iyo wixii hore ay isla soo mareen. arrinta oo idilna waxay naga tahay inaynu runta qarxinno. waa halkii cabdilaahi qashiix. waa tahay haddaan markii hore soomaalida oo idil si guud ula hadlaayey, hadda waxaan u bayrayaa sidaan ballan qaaday nin qura iyo dadka uu la joogo ee aan anigu u haysto inuu marti u yahay. soomaalida inta badan iyo shisheeguhuna ay u haystaan inuu maamulo. ninku waa maxamed siyaad barre, dadka uu la joogaana waa mareexaanka degan gobolka ballaaran ee geda la yidhaahdo. waxaa la isweydiin karaa maxaan maxamed siyaad qayb uga siinayaa cajaladan soomaalida u wada socota? maxaanse ula hadlayaa haddiiba uusan wax ku qaadanayn oo waana abuur baa ka horraysaye la malayn karo inuu ku gacan sayri doono? dhowr sababood ayaa igu wacan. waa marka koowaada maxamed siyaad muddo dheer oo 21 sano ah ayuu dalkeenna siduu doono uga soo teliyey. burburka iyo aayo xumada haysatana gacanta ugu weyn buu ku leeyahay, isaga iyo kooxdii daacadda u ahayd ee halka aynu naal ina dhigtay. waa marka labaadee waxay dani iga haysaa shacbiga reer gadoodka ah ee 7 bilood ee aan gudaha dalka qaxootiga ku ahaa sida wacan ii martigeliyey. shacbigaasoo weli badankiisu ka diimoon yahay tabaalaha uu aabasiyaad la maagan yahay iyo sida uu rabo inuu gees ugu fiiqo haddiiba ay dhacdo inay soomaali xagga nabadda u xagliso danaheedana u soo jeesato. waxaan qabaa shacbiga reer gadood inaysan awood u lahayn tabcooyinkii uu maxamed siyaad soomaali oo dhan ku hayay inay keligood dusha u ritaan. waxay kolka ila noqotay inay hiilkayga afba ha ahaadee ay u baahan yihiin. midda saddexaad waa nin godab qabee waxaan u baqayaa isaga qudhiisa iyo ammaankiisa. waxaan ka cabsi qabaa niman dhiiggiisa u haleelayaa inay maalin maalmaha ka mida isaga oo dagan gacanta ku dhigaan, dabadeedna ay horgeeyaan maxkamad degdeg ah oo qabiil ka taliyo oo sida kuwiisii oo kale ragga gasoorayaasha ka ah iyo sharcigu ay kala xanaaqaan. waxaan u diidayaa isaga oo keligiisa oo raggii dembiga la galay ay xor yihiin in la mindi raaciyo. qabyaaladna igama ahee waa iga cadaalad jacayl, maxaa yeelay waxaan qabaa dembigii soomaaliya laga galay inuu ka badan yahay wax uu nin keliyihii geli karo, keligii taliye kastaba ha ahaadee. midda kale waxaan ka afeefanayaa erayadaan u soo jeedin doono inaan digasho loo qaadan, maxaa yeelay inkastoo aanan ku doodi karin cadaalad darradiisii inaan ka nabad galay, haddana xubnaha shacbigii uu cadaadiska baday waan ugu roonaa oo ugu yaraan cabsidu ha joogta ha ahaatee ammaankayga shaksiga ahi halis badan ma gelin. sababtan meeshii aad doonto ka soo saar, haddaad rabto qabyaalad u malee kollay si kale yeeli mayside. maxamed siyaad waxaan leeyahay si wanaagsan ii dhegayso, inaad ii hagaagtana ha isku dayin. hadda waa kacaandiid odhan maysid oo waa bog soo xirmaye maxaad igu odhan doontaa? maxaadse u sheegi doontaa dadka reer gado ee aan aniga iyo iyaguba ognahay inaad martida u tahay, adigana ay kula tahay inaad u taliso soomaali badan iyo shisheeyuhuna ay u haystaan inaad maamusho? cajaladana markii ay ku soo gaadho waan malayn karaa waxaad ku odhan doontaa CIA-da ayuu u shaqeeyaa, ama waxaad ku odhan doontaa cali mahdi ama caydiid bay fariintu ka socotaa, ama waxaad ku odhan doontaa waa ammaan raadis oo wuxuu doonayaa inuu xamar tago. waxaan ku rajo weynahay intaba inaan lagaa koobin doonin oo awal in yar baa ku taqiine reergada badankiis iyo adigu aad hadda isbarateen.
bishii Febraayo 3deedii waa 1991 saacaddu markay ahayd 4 galabnimo waataan kuugu imid baaq dheere adigoo ay koox yari kuu ilaalinayso guryaha mashruuca fidinta beeraha ee magaalada ka yar baxsan. markaan isa salaanay waataan noqonay labadeenna oo keliya. kolkaad waardiyihii ugu baaqday inay dibadda u baxaan sababta aad u saartayna allaa igu ogo weli waa iga diimoon tahay. faskii dagaalkii xamar isagoo weli kaa muuqda waataan caafimaadkaaga wax kaa weydiiyey. su-aashaydii igamaad jawaabine waxaad ila aaday xamar iyo dagaalkii. waxaad tidhi anigoo sharaf leh ka tagdhi waa tii la iga waayey anigoo la eryaayo ayaa la iga soo saaray. waxaan ku idhi kow hadda maxaad damacsan tahay? waxaad i tidhi adiga maxay kula tahay? waxaan ku idhi ninka ragga ahi waa kii calool adaygi leh. geesinimaduna waa inaad markii lagaa adkaado qirato in lagaa adkaaday. waad aamustay anna waan aamusay oo waxaan ka fakarayay awooddii ku soo martay wixii sacab lagu tumay wixii lagu aabbaystay sidii ay tala kaaga hoostay ee tusaalaha waayeelka iyo waxgaradkaba intaad dhab u quursatay ay cadaaladda ilaahiga ahi shaqadeedii u qabsatay. sidayna u aamusnayn cabbaar kadib waadigii adigu hadalkii xirmay furay. waadigii la soo booday anigoo aan jeclayn oo ka xun ayaan qaxooti noqonayaa. waataan ku idhi wax kuu dhaama garan maayee sidaa iska yeer. waataan raaciyey intaad soo shaqayn kartay waad soo shaqaysaye tegiddaada qaxootiha u qaado inay benshan tahay. waan xusuustaa oo sidaas baan ereyga ugu isticmaalay af ingiriiskiisa. waatuu hadalkii haddana inaga xirmay. waataan waayey wax kale oo aan ku idhaahdo. waataad adigu haddana furtay oo babiskii yaraa intaad lowyaha saaratay igu tiri mareexaan aniga oo dagaalamaya ayuu iga soo tegey. waxay la soo baxsadeen lacagtii iyo gaadiidkii ay kacaanka ku heleen. waataad raacisay gunnimo doortee waa waxay ka helaan. waa hadal dumar baa la yidhaahdaaye waxbaa qub i yidhi. ereygu mahadidaad baan is idhi. sidee buu mareexaan ugu celqali karaa? soo ma aha kuwa ay soomaali oo idili daraaddiis ula collowday. yaa sheegi kara guri ama qoys mareexaan ah oo kiisaba allaha ka dhigee aan taliskiisii eedin. hadda cidda uu ku soo cararay ee uu maganta u yahay iyo wiilasha loo soo mari waayey ee uu ku hurdaa sow iyaga maaha. muxuu ka rabay oo kale? ma inay soomaali oo idin u jirib dhigaan oo uu wiilka ugu dambeeya masruufto ilaa uu inta iskiis u xanuunsado ay tii alla u timaado? su-aalahaas oo dhammi waa kuwii isla markiiba igu soo dhacay. xusuustayda oo keliyana kaaga soo guurin maayee waxaan kaashanayaa waraaqihii aan kulankeenna ku qoray habeenkii markii aan ku noqday baaq dheere iyo halkii aan ka deganaa. sow anigu ma ogeyne waxaa dunida lagu weydiinayo codti qaxooti iyo meel ku qaadata. 5 casho kadibba waatay jawaabi timid. talyaaniga abudabey iyo masaariduba waatay diideen magagelyo siyaasadeed inay ku siiyaan. waataad garbahaadaya oo aan deganaa timid. 2 casho haddaad joogtay oo lagu sooray laguna loogay waataad odayaashii magaalada shirisay. ka soo tashada inaan idinla joogo oo aad dagaalamaysaan reer hebelna aad xaqiinii ka soo dhacsanaysaan iyo inaan iska tago oo meel waliba way ii furan tahay aan idinka dhaqaaqo. shirkii waayeelka iyo madaxdii gobolka waa kii uu goor fiid ah la isugu yimid. waa tii ay had soo jeediyeen in lagaa codsado gobolka gado iyo dadkiisa inaad faraha isaga qaado oo aad Kenya gasho. waa tii ay rag kale kaa diideen oo ku doodeen inaad la meel joogto inta kale ee xamar ka soo qaxday gobolkana soo gashay. markii ay doodii dheeraatay oo dhinacna la isu raaci waayey waa tii min soo jeediyey inaan arrinta la cuslayn ama lagu kala jabine adiga dib lagugu soo celiyo laguna sheego go-aanka oo noqday tagna ku odhan mayno joogna ku odhan mayno labada kii aadan mooda adigu ku dhaqaaq. waa tii lagu heshiiyey in subaxnimada go-aankaa lagu sheego sidaasna waa tii lagu kala hoyday. waa tuu intaan waagu bariyin go-aankaasi ku soo gaaray. laguguna daray raggii bixidaada doonayay inay ka badnaayeen kana cadcadaayeen inta kale. waataad farsamada badnayde isla habeenkiiba waadigii qalqaaliyey banaanbax taageero ah oo u eg
kuwii xamar aad ka qalqaalin jirtay markii madax la xidho ama aad mucaaridnimo ka dareento xubno ka tirsan wixii golayaasha aad ku magacaabi jirtay waataad intaad gaariga u fuushay oo akhrisay khudbaddii gaabnaanta badnayd asii si walba ugu ekayd kuwii aad xamar ka akhrin jirtay bartamihii iyo dhammaadkii siddeetanaadkii waataan goobta joogay waxaan ka xusuustaa laba hadal oo soo noqnoqday dhowr jeerna 5 daqiiqo ee khudbadda socotay aad ku soo celisay midi wuxuu ahaa kursigii madaxtooyo ma rabo inaan ku noqdo oo hadduu nafac iyo hibo lahaa soo maray hadalka labaadna wuxuu ahaa kursigii madaxtooyo aniga ayaa xaq u leh oo sharci ahaan madaxweyne ah waana inaad dib iga doontaan intaas waxaa weheliyey tirinta guulihii Oktoobar maalintaasi maalintii aan bahdheeda kugu arkay waxaa u dhaxeeyey allaa igu ogo 4 casho oo keliya maalintaas iyo 6 bilood oo ka dambaysay oo aan geda wada joognay hadalkaagu labadaa unbuu ahaa inkastoo markii aad dadweynaha la hadlayso aad ku lahayd kursigii la iga qaaday idinkaa lahaaye ila doora oo xaqiinii la dhacay soo ceshada marka min siyaasi ah ama waxbarasho leh aad kulantaanna waataad ku lahayd kursi waxba ku fali maayee waxaan u halgamayaa waa sharafta mareexaan oo meel looga dhacay inaan soo celiyo hadalladaas iska horimaadka badan markii aad goobo dhowr ah kaga dhawaaqday waatay kordheen dadkii joogitaankaaga geda ka soo horjeeday waa tii la bulaamay adiguna waataad isku dayray inaad ku cayaarto ama aad danaqdo xididka qabyaaladda ee gobolka oo aad danbay og tahay waataad faafisay ragga iga soo horjeeda ee doonaya inaan geda ka tago waxaa lacag looga soo diraa xamar lacag aan shilin ahayn dollar amerikaan ah waataad tidhi waxay raggaasi doonayaan hawiyaha USC da sheegta inay i gacan geliyaan dadka wixii makasta ahaa waa adigii kaxaysan ogaaye waa adigii doodaas ka dhaadhiciyey waataad ka fakertay qorshe iyo dood kale oo aad joogitaankaaga geda ku sharciyayso cabdiraxmaan jaamac iyo warsame xamoole waataad afka ugu tirtay nairobi iyo gedaba inay ku faafiyaan inta aad gudaha dalka joogto inaan dunidu aqoonsan doonin dowlad xamar laga dhiso waa adigii ku yidhi maxaa taa ugu wacan haddii la idin weydiiyana waxaad ku jawaabtaan waxaa ugu wacan joogitaanka madaxweynihii sharciga ahaa aabbihii ummaddu inta uu dalka ku jirana adduunyadu dowlad kale oo Soomaaliya ka dhisanta ma ogola dad makas ah oo rag iyo dumarba leh aqoon darana hayso waa tii adiga iyo xoonka allaxda u tahay ay taa ka dhaadhiciyeen wax yar kadibba waxaa dadkii loo sheegay inaan taasi run ahayn duniduna ay dal iyo shacbi taqaane aysan dan ka lahayn keligii taliye dadkiisa ka hor dowladaha adduunka bari iyo galbeedba ay joojiyeen inay wax ku darsadaan jabhadaha oo dhanna ku taageereen rididdiisa iyo kursi ka qaadkiisa waxaa dadkii loo sheegay oo raggii joogitaanka ay ka soo horjeeday ay ugu caqli celiyeen aqoonsi la'aanta USC da inaan iyagu sabab u ahayn inay iyagu sabab u yihiin aysan ku xirnayn joogiddaada iyo maqnaanshahaaga doona waxay dunidu aqoonsataa dal xasiloon oo midaysan oo leh talis dhexe oo ay xukuumadaha hoose ee gobolladu ka amar qaataan ammaankiisuna sugan yahay USC dii xamar qabsatay markii ay intaa ku guulaysan waayeen markii ay xakameyn waayeen dhallinyaradii hubaysnayd ee ay kursiga kaagala wareegeen markii ay weeraro waali ah ku qaadeen gobolladii ay tageen dadkii ay guryahooda ka soo celiyeen ee ay hantidoodii la wareegeen markii ay dileen nin iyo haweeney kasta oo aan hawiye ahayn markii ay kubsadeen cid kasta ha u dhalatee gabar kasta iyo habar kasta markii ay gubeen burburiyeen ama ay boobeen hantidii biirtay ee qaranka Soomaaliyeed dagaalkii la islahaa waxay ku ridayaan adiga iyo xukunkaagii faasidka ahaa markii ay u rogeen dagaal hawiye oo daarood gumaad ujeedadiisu tahay markii ay xagta mariyeen wax alla wixii raad taariikheed dhismayaal taalooyin dagaamo hore iyo wax alla wixii dokumenti qarameed oo laga soo bilaabo 1890 ilaa maanta ummadda u keedsanaa intaas iyo in kale oo aanan tirintooda waqti u hayn markii ay ku eedoobeen nimankii xamar qabsaday ee USC da la baxay maxay dunidu aqoonsataa Napudi
dadka reer gedo in badan oo ka mid ah oo aad horay arrinta aqoonsiga ugu wareerisay ayaa doodaa ku qancay, adiguna inay tahay dood meel mar ah waad ogey. laakiin waxaan ku qancin jaalla cabdiraxmaan iyo jaalla warsame camoole oo ay u muuqdaan imbaraadooriyadihii wasaaradaha maaliyadda, arrimaha dibadda iyo wixii aan iskaashatooyinka ahayn ee aada iskaashatooyinka ku magacaabi jirtay. inaan aqoonsiga dawlad dhisantaa adiga kugu xirnayn waxay reer gedo u sii caddaatay markii adigoo weli geda jooga jabuuti lagu qabtay 2 shir oo aan lagaala tashan, laguna falanqeeyey arrimaha soomaalida. waxay isweydiiyeen haddii aad weli tahay madaxweynaha sharciga ah ee jamhuuriyadda dimuqraadiga soomaaliya, sidee ku dhacday arrimaha dalkaaga shirar lagaga hadlaayo in la qabto adiga oo aan raalli ka ahayn, oo weliba go'aamadii ka soo baxay lagugu guddiyo in lagu soo qabto. waxaa shirkii labaad ee jabuuti ka soo qayb galay dhammaan ururada caalamiga ah, wakiiladii yurub, ameerika iyo carabtana waxay tiro ka qabeen waxaa la waayay meel la kala seexiyo magaalada yar ee jabuuti. xusuustayda oo keliya waxa aan sheegayo ka soo guurin maayee waxaan kaashanayaa waraaqihii gedo waxa aan ku magacaabayo oo hadda i horyaal. adigoo dhowr qof mooyee dadweynihii kale kaa jeestay oo wixii aad dabamaryo iyo khiyaamo badnayd aad garan laadahay meel aad wax ka farsamayso, waa tii ay soo baxeen go'aamadii siloonaa ee shirarka jabuuti. waa tii la go'aamiyey in maxamed siyaadi taageerayaashiisa lagu qaado dagaal wada jir ah oo ay u dhan yihiin 6 jabhadood. saaxiibkaagii aad beri isjeclaydeen oo maraha kugu ballan furay cabdirasaaq xaaji xuseen waa tuu go'aankaas jeerka kala soo baxay, waana tii laga aqbalay. sidaad adigu islahayd waa tuu mareexaan kuu soo galay dabinkii aad la doonaysay, adigoo isku hambalyeynaya jabuuti kadib iyaga iyo adigu inaad soomaali dambiilayaal u wada tihiin, inta kalena ay xalay dheeray tahay, iyadoo weliba cabdirasaaq xaaji xuseen iyo cumar macalin ay ugu horreeyaan. mareexaan wixii joogitaanka ay gada ka soo horjeeday iyo wixii aan ka soo horjeediniba waa tii ay isaga mid noqdeen inay go'aankaas ishortaagaan si ay noloshooda iyo tan carruurtooda ay u badbaadiyaan. ha yeeshee waa taad ogeydoo marna la iskuma raacin isdifaacid mooyee in mareexaan qaado weerar duruucdiisu tahay inaad adigu xamar ku noqoto oo aad sanooyin kala foorto sheekh soomaalida uga taliso, dhallinyaro badan oo da'yarina ay sababtaas u leecato. weeraradii USC-da markii laga baqay inay gada soo gaaraan, shirkii koowaad ee jabuutina ay go'aamadiisii soo baxeen, reer gada oo idilna ay dareemeen mahtalakada ay cabdirasaaq iyo cumar macalin iyo saaxiibadood la maagan yihiin. waa tii bulshada gobolku ay go'aansadeen inay sida qabaa'ilka kale u samaystaan jabhad ay dadkooda iyo maatidooda kaga daafacaan hadidaadda qaawan ee gadarrada la isugu bahaystay ama la isugu raacay. dhallinyaradii waxbaratay, siyaasiyiintii, saraakiishii, ugaaskii iyo odayaashii jiribadu waatay isku raaceen lagaba maarmaan inay arrintaasu tahay, iyadoo looga gol lahaa marka hore in la helo hanaan maamul iyo kala dambayn loogu irkado, marka labaadna hanaan gobolka looga daafaco nimanka xamar qabsaday ee weerarada gobollada kale usoo abaabulaya, iyo waatan saddexaade inay jabhaddaasi noqoto midda matalaysa mareexaanka gedo iyo mareexaanka galguduud ku dhaqan. kolka la isku raacayo in soomaaliya dib loo dhiso, wadahadal la isugu yimaado, qarannimadii burburtayna si siman soo nooreynteedii loogu howlgalo. buulaxaawo, garbaharey iyo buurdhuubaba waa tii arrintaas la isaga raacay oo aan loo kala bayrin, lana waayay cid ku dhiirata inay ishortaagto. ileen adigu dadka la mid ma ahide, ileen waad ka sarraysaaye, ileen aadan galayr mataan ciideed iyo xirsi ammaan oo la isku daray baa tahay, ilaan sacabkii horaad hibanaysaayo ku dilay, ilaan 21 sano oo ay soomaali ku wada sujuuday baad soo martay, ilaan cid kale oo madax noqotaa geeridaada ah waa adigii asaaska jabhadda keligaa maya yidhi. waa tii la yaaboo lagu weydiiyey war maxaad ku diidan tahay, adigoo ay madaxaaga ka dhawaaqayaan soodaf, SNM iyo USC. waa taa tidhi jabhaday waa burcad, waa kacaandiid, waa in lagu dagaalamaa magacii dawladdii ay madaxda ka ahaa. waa tii loo qaacay ayna ahaydba
kursigii halla igu soo celiyey dad badan oo aan makas moodayey hortiina kuwa arkayey oday iyaga ka dhashay oo magan u ah waa tii ay maalintaas kaa jeesteen kuna soo biireen intii horay ku tiqin waa tii af buuxa lagugu sheegay istifaacid mooyee dawlad aan soo ceshanayno oo aan soomaalida kale uga sokaynaa ma jirto in lagaa abaaldhacay intaad u qaadatay waa taad afkaaga furatay hebel iyo hebel meeran oo gobolka gedo madaxdooda ka mid ah amaba laga jecel yahay waa taad qarsoodi iyo bareerba u erays waa taad bilowday jilibada mareexaan inaad tiraahdo reer hebel anigay ila jiraan oo xagga abtirkaanu isxigna reer hebelna waxay xiriir la leeyihiin USC SDM soodaf iyo weliba SNM oo inay ismaqlaan mooyee ay gadaba kala fog yihiin abaalka aad mareexaan u gashay ee aad ka dhowrayso inuu gudaa yaabaye muxuu yahay galguduud iyada haba soo qaadine rubco qarnigii ay soomaalidu xerada kugu jirtay maxaa wanaag ama nolol ah oo xaggaaga ka soo gaaray waddo laami ah 1 kilomitarna allaha ka dhigee ma ku aragtay markaad u soo qaxday waata webigu dhex maro meel walbana washaaqooyinku ay buuxaane beer ma ku aragtay weligaasa ma ku dheeris imise jeer baad timid intaad madaxweynaha ahayd abaalka aad u gashay ma askartii aad ka qoran jirtay oo aad soomaalida ugu goodidi jirtayba ma geedida macno darrada ah ee ay 22 sano dadka kale ka xigeenba gobollada soomaaliya mid aana tegin waa yaryahay gobolka ugu liitaana waa gedo markii laga eego dhinac walba oo horumar ah oo uu bani aadamku tigsado waxaaba ila kaa dhaamay jaale cabdiraxmaan jaamac bare oo bishii maarso kala hore geda aan ku arkay isagoo markaa yurub iyo ameerika ka yimid garab aad u kulul baanu iska raacnay buuraxaawo iyadoo isagu uu adiga iyo buur dhuubo ugu socdo aniguna reerkaygii iyo garbaharey aanu carowsanahay wadiiqooyinka baxaadka badan iyo haagaanaha baabuurta lagu kakabiyo ee carra casa iyo garbaharey u dhexeeya waddooyinkana loogu yeedho markaan marayno cabdiraxmaanna uu u adkaysan la'yahay jagjagta baas ee uusan u baran ayaa waxaa ka dareemay ina dhallinyaro ah oo aan baraastii bililiqada ahayde inan yar oo nala saaraa inankii baa yidhi waagii haddaad wax ka qaban lahayd cabdiraxmaanow maanta tani kuguma dhacdeen cabdiraxmaan wuxuu la soo booday allow yaa mar xukunkii ku noqda waleelaamiyo badani geda waa isku dhaaf cabdiraxmaan baa ila kaa dhaama saa isagaa ballan qaadaya hadduu mar ku noqdo boqortooyadii maaliyadda iyo arrimaha dibadda inuu gedo u faragodi doone adiguse waxaad qabtaa inaan waxba ka dhimanayn oo ay soomaaliya ugu fiican tahay isla beryahaasna waataad reergedaha bilowday inaad ku tidhaahdo wadala-aanta ayaa idin roonay maxaa yeelay haddaad laamiye ahaan lahaydeen kol horuu cadowgu idiin soo gudbi lahaa oo dumarka idinka kufsan lahaa waa tahay su-aashu kolka waxay tahay laga sugayaa inaan ka jawaabo maxaad geda u joogtaa adigu waad og tahay anna inaan ogahay waad og tahay aan dadka kalena ogeysiiyo marka hore waxaa kaa go-aan ah inta aad nooshahay inaan soomaaliya nabadi ka dhicin marka labaad waxaa kaa go-aan kala ah inaad mareexaan ka arsato adigoo u haysta inay xamar buqor baraqa ah ugu soo cidleeyeen waxaad rabtaa soomaali oo dhammi haddii ay heshiiso inaan mareexaan yeelin oo uu keligiis nabaddiid noqdo dhulka uu dagaana uu ku abaado goob dagaal oo aan rasaastu marna ka qaboobin marka saddexaad waxaad rabtaa ogaasyadoodii jiray iyo madaxdoodii kale ee ay hiddaha u lahaayeen inaad macna tirto oo aad duubka saaran ka xayoobiso marka afaraad waxaad rabtaa siyaasiyiinta iyo madaxda kale ee ay doorteen iyo jabhadda ay dhisteen inaad saqiir suujiso iyadoo ay qayb ka tahay niyadaada aarsiga ah waxaad og tahay dunidii oo dhidili inay diiday kaalmo wax kastaba ha ahaatee daawo iyo cunno iyo wax kastaba inay geda u soo dirto iyadoo meel kasta la geeyo kismaayo iyo bari iyo xamarba sababtana waxaa laga dhigay dhul aad ku sugan tahay inaan waxba la geyn karin waxaan waxba ka jirin asi dunida lagu shaaceeyey looguna sheekeeyey inaad kaalmooyinka dunida aad ciidan ku samaysan karto haddii ay agtaada timaado oo aad markaa cadqalaadin karayso baaridoonka nabadda dalka loogu jiro waa tahay sababahaas aan soo sheegay joogitaankaaga gedo bal aan qaar ka soo qaado waxa daliishooda ay tahay waxaa ka mid a ololaha joogtada ah ee adiga cabdiraxmaan jaamac bare iyo warsame camoole aad ku haysaan SNF gaar ahaan cumar xaaji oo guddoomiye ku meel gaara ka ah
waxaan ku jiray rag cabdiraxmaan nairobi ku weydiiyey wax cumar lagu jaanjaamay wuxuu ku jawaabay 6 sano ayaa la xiro uu ceel qabaayo nin ceel qabaana madax ma noqon karo weligiin xujo ka liidata ma aragteen mase maqasheen aan 6 sano xaqdarro kugu xiro dabadeedna ha ceel qabine raalli ka noqo haddii xataa aan cumar xaaji haysan sababo kale oo SNF madax ugu noqdo waxaa ku filan adigoo dadka kale shacabka kuu tumaayo inuu diiday inuu lamid noqdo waxaa ku filan inuu kugu gacan sayray markaad ka damcday inuu ahaado wasiir maqaar saar ah oo ku magacaaban gaashaandhigga isla markaasna gurigaaga ciidamadii Soomaaliyeed looga taliyo ololaha adiga cabdiraxmaan iyo warsame camoole wuxuu qayb ka yahay ka hortegidda nin kale oo mareexaan ah oo magac yeesha daliisha kale sheeko ku saabsan aan ku xusuusiyo waa afgooye iyo cajiradii baas cajiradii ay daraaddeed dhalinyarada badani u dhimatay malaha adigu garatay dadka kale aan u faahfaahiyo qiyaastu waa bishii abriil ee kala hore ciidamada SNF-tu waatay bay daba joogeen go-aankuna waatuu ahaa inaan la dhaafina buurxakaba lagu ekaado jenaraal cabdinaasir xaaji xaashi oo taliye ahaa waa adigii dareensaday markuu diiday inuu xamar galo waa adigii dhalinyarada sodomeeyaha intaad madaxooda minjo u rogtay oo beenbeenta dallacisay ka dhaadhiciyey inay ciidamada horjoogta xamar galaan oo markay raadiyaha qabtaan ka saaraan cajiradii jinni ee aad qaar ka mida u dhiigtay cajiradii aad buurdhuuba ku duubtay ee aad ku sheegaysay inaad xukunkii kusoo noqotay 30 wiil oo aan saad haysan rasaas haysan oon hoggaan iyo madaxtoona lahayn iyo cajiradiiba waatay ku lumeen mukaygii afgooye kadib markii buur xakaba ku jiireen cabdinaasir oo warjoogala ku haya markala jeceshahay murugaysa makaa haysaa u malayn maayo daliisha saddexaad ee sababaha joogitaankaaga gado iyadana igaho waa isla waqtigaas iyo baydhabo afgooyena aan 30 wiil weli tegin waa adigii amray baabuurtii iyo teknikadii ciidamada in lagu dhajiyo masawirkaagii wejiga ahaa jaale cabdiraxmaan iyo jaale warsan waa kuwii hawshaa dhabarka u ritay iyagoo hoos kaga daabacay erayada ah rugcadaagii soo rogaal celi qayb ka mid a baabuurtaas oo gacanta USC-da galay waa tii bandhig ahaan loo geeyey xamar waana tii loo isticmaalay dacaayad dib loogu abaabulayo mooryaantii dagaalka ku daashay ee bilaqada u jeesatay waa tii ay ku guulaysay masawirkaagiina uu midnimo cusub ka dhex dhaliyey isla balyahaas iyo baydhabo waa kuwii cabdiraxmaan iyo warsame ay silsadeen dadka halkaa degan waana kuwii dallacaadda iyo magacaabidda qaybiyey isu duwayaal maamulayaal laabeed madaxda iskaashatooyinka dhagaxa iyo dhuxusha safiiro qunsullo iyo xoogayaal guud ama koowaad waa kuwa raggii muddo 20 sano ka badan aad mareexaan hor dhigtay waana xaqligaas xaqligii Soomaaliya lagu xukumayay ee Soomaali weyn iyo mareexaan isnacsiiyey waxaad jeclaan lahayd inaad xukunka Soomaaliya dib ugu noqoto waxaana jira arrimo ciidaas ka badan oo aan qaarkood soo sheegay inta kalena aan iska dhaafayno oo haliilka aad arrintaa u qabta muujinaya intaad gada joogtay hadafka isaga ah waddo kasta waad u martay ha yeeshee waxba kaagama suuroobin maxaa yeelay ciidamadii adoo xamar jooga kugu soo baneeyey ma garan karaan waxa aad u faa'iideynayso haddii aad mar kale kursiga ku noqoto waddo kasta waad u martay reergaduhu inuu ku aqoonsado madaxweynenimo aan Soomaalida kale ku aqoonsanayn waxaana ugu daraa dilkii qarsoodiga ahaa ee aad garbaharey ku soo rogtay waxaan u jeedaa sheekhii reer cali xuseen ee magaaladaas oo dansan noo daaray sheekhii aan cilmigiisa yaabnay ee tafsiirka iyo tadwiidka qur-aanka magaalada nafta qismu ku soo geliyey sheekhii inta joogitaankaaga gada ka shakiyey ka hadlay oo ku biiray dadkii jeclaa inaad gobolka dhinac kale u wegaarato sheekhii isagoo salaadii cishaas u tukaday oo gurigiisa u socda aad burcadda u soo dirtay ee ay luuqa mugdiga ah khasnada aakaaga ah oogadiisii daahirka ah ku dilayeen isla markiiba magaalada ka buuraysay ee aad buurdhooga u guurtay markaad ogaatay inuu dhintay waa sheekhii cabdiraxmaan janaac bari roome lagu weydiiyey sidii uu u geeriyooday ee uu ku jawaabay isagoo meyd ah ayaa laga helay waddooyinka garbahaarka middood aan soo gabagabeeyey waxaan kugula talinayaa taariikhdu nin ay diiday baa tahay ogolow inay ku diiday ogolow inaan cid ku heelani jirin waa maxamed sheekh cusmaan iyo cabdi warsame isaaq ragga duulaanka kugu soo ah oo madaxaaga doonaya wixii ay tira lahaayeen ma haysaa wasiir keliya oo fikirkaaga xambaarsan amaba gado kugu soo booqday waxaan kugula talinayaa mareexaan gado iyo dunidaba inaad u caddayso siyaasad dambe oo Soomaaliyeed inaadan faraha la gelin hadalka aan madaxo ka daabnayn ee ah waa waxbaan xil wareejinayaa intaad iska dhaafto ayaan kugula talinayaa haddii kale adoo 80 kor u dhaafay ayaad ku dhammaan doontaa gacan aan kuu naxayn iyadoo aan lagu barooran halkaa ayaan ku soo gabagabeeyey hadalkii aan maxamed siyaad barre ugu talagalay oo aan kaga jawaabayey dadka uu la joogaa waxa ay ka qabaan iyo isagu qorshaha uu meesha u joogo waad mahadsantihiin dhegaysi wanaagsan waxaan codsanayaa qofkii mid helaa cajiradan inuu qof saaxiibkiisa mid u duubo